haddii uu ku faafo dhul barakada ayuu ka siibaa, kheyraadka uu ku yaraadaa, dhibaatooyinkuna way ku faafaan. Dabcan waxaynu u jeednaa waa dulmiga oo aynu muuqaalkeenan kusoo qaadani doono. Magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkan waa Salgaad Media. Dulmigu waa in shay la dhigo meel aan xaq u lahayn. Si guudna qeexitaanka dulmigu waa cadaalad darro. Dulmigu waa in shay kasta laga kaxeeyo meeshii uu ku habboonaa. Saas daraaddeed waa isku dhafka dhafan xuduudaha nolosha iyo noolaha. Qeexitaanka aadka u saxani waa in dib loo geysto cid ha ahaato dil, garaacid, ku qasbid waxaanu doonayn, iyo nooc kastoo aflagaado jireed ahba. Waxaa jira nooc kale oo dulmi ah sida eexda, iska weynaysiinta, cadaalad darrada iyo sinaan la'aanta. Noocan cadaalad darro waxaa soo hoosgelaya qaybo badan sida in aabbuhu carruurtiisa qaar u janjeersado iyo kala fogaanshaha walaalaha. Dulmigu waa uu jahad badan yahay, waxaase ugu weyn: 1. Dulmiga uu qofku ka galo Rabbigii. 2. Dulmiga uu qofku u geysto dadka, iyo dulmiga uu qofku ka galo naftiisa. Si kastoo uu dulmigu u jahad badan yahay, waxa uu isku soo biyo shubanayaa gaboodfal uu qofku kula kacay naftiisa uun. Haddii aynu intaas kusoo fahnay dulmiga, aynu jeerkana isla milicsano dhibaatooyinka dulmigu keeno. Jaamacad ku taalla magaalada London ayaa waxay daraasad ku samaysay dadyow gaadhaya 800 oo qof oo isugu jira rag iyo dumar oo ku dhowaad 11 gu ka shaqaynayay xarumo dowladeed ee dalkaas. Kadibna waxaa la hordhigay su'aal u muuqatay hadal iska caadi ah oo ahayd: inta badan waxaan dareemaa in aan la ila dhaqmin si caadi ah. Su'aashaas oo la hoos dhigay 4 jawaabood oo gabageli ah. Ugu dambeyn, daraasadda ayaa kusoo gabagabowday in kuwa dareema cadaadiska badani ay 55% halis ugu jiraan xanuuno wadnaha ah, halka haleela dadkani waxa ay labanlaab ka wadne xanuun badan yihiin kuwa kale. Daawada: haddii aynu isla garanay dhibaatada dulmiga iyo sida waxa uu yahay dulmigu, bal haatan aynu isla eegno diinta Islaamku maxay ka qabtaa dulmiga. Waxa uu yidhi Abuubakar radiyallahu canhu: waxaan maqlay rasuulka oo leh, haddii ay dadku arkaan dulmi oo ayna gacmahooda wax kaga qaban, waxaan ka baqayaa inuu Ilaahay ciqaab ku soo rogo. Aan ku su'aalo daawade, adigoo dareensan miinnada iyo miisaanka dulmiga, ma samayn lahayd dulmi? Ma daawan lahayd dulmi agtaada ka socda? Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu waxa uu yidhi: cadaaladda waa jannada kuwa la dulmiyay iyo cadaabka kuwa gaboodfalay. Intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkii aynu uga hadlaynay dulmiga. Haddii uu muuqaalku qanciyay, like